بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيقة صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha update sports ee Bashiir Beji sidoo kale Cabdinuur Bashiir Maxamuud Daji oo ah YouTube-ka dadweynaha marka hore waxaan ka codsanaynaa inay marka subscribe-ka like iyo share-ta page-ka iyo sidoo kale YouTube-ka intaba ay ku qabtaan si barnaamijka marka uu noqdo mid tayeysan haddii marka aan ku warbadno qodobo muhiim ah ayaa barnaamijka ku soo qadan doonaa qodobka ugu horeeyana marka wuxuu noqon doonaa ninka u ciyaaraya naadiga lagu magacaabo Manchester United Daniel James ayaa la sheegay naadiga Leeds United haatan ay 30 milyan marka ku qaadatay wararka update-ka ayna ka mid yihiin xidigani oo kulankii Wolves marka uu cadre dhigay isagoo baalka marka saarnaa isaga iyo xidiga lagu magacaabo Jozanjo waxaa leeyahay xidigani waxa marka booska u qalqaaliyay ninkii hore ugu soo ciyaaray naadiga United ee nambarka 12 ku caan baxay Ryan Giggs ayaa marka sheegay xidigani in fursad marka la siiyo laakiin United waxa leeyahay waxa laga yaabaa inay ku fashilmanto xidiga lagu magacaabo Jozanjo booskiisa marka uu ka soo bixi waayo xidigani inay ku degdegtaayaan marka laga yaabaa ayaa marka la leeyahay xidigan waa xidigaha ugu muhiimsan ee naadiga United ayaa marka la leeyahay iyadoo la leeyahay difaacyada ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan ay haysato Rafael Varane oo qaatay xidigaha ugu wanaagsan isbuucan ayuu marka galay oo marka waxa leeyahay difaacyada ugu wanaagsan horyaalka xilligan marka sitmaankan isbuucan ayuu marka ka mid noqday ayaa marka leeyahay isagii Harry Maguire ayana haysataa naadiga United ayaa marka la leeyahay annagoo marka aan fiirinayno waxyaabihii update-ka ka ahaa ayaa markaan eegina dhanka kale haddii aan fiirino xidiga naadiga lagu magacaabo Arsenal ku fala garoobay naadiga Chelsea ka yimid ee William Vargas ayaa la sheegay inuu ku biiray naadiga lagu magacaabo Corinthians ee marka ka dhisan Brazil ayaa marka la sheegay inay marka haatan la wareegtay wararka update-ka ayana marka ka mid yihiin kalena Pepe wuxuu leeyahay naadiga PSG mustaqbalkeeda kubadda cagta waa inay marka kala cadeysaa haddii marka ay la gaarayso ayuu leeyahay heshiis iyo haddii kale iyo haddii marka ay fasaxayso ayuu marka leeyahay dhanka kale Emerson Royal waxa leeyahay waxa soo gabagaboobay naadiga marka Tottenham Hotspur caafimaadka uu maro dhanka kale Wolves xidigeedii Adam Traore ayaa marka leeyahay waxa qaadatay naadiga lagu magacaabo Tottenham Hotspur dhanka kale Hector Bellerin naadiga Real Betis ayuu marka ku biiraya marka la leeyahay Adam Traore 30 milyan ayaa naadiga Tottenham Hotspur maanta heshiiska marka uu ku dhameystiri doona ayaa marka leeyahay dhanka kale Alex Moreba ayaa leeyahay naadiga RB Leipzig ayaa marka la wareegtay ayaa haatan wararka update-ka marka ay sheegayaan dhanka kale xidig lagu magacaabo Tony Deni ayaa marka leeyahay naadiga Birmingham ayaa la gaartay 2 sano heshiisa ayaa marka la naadiga Watford ayuu marka ka yimid ayaa leeyahay dhanka kale naadiga Bayern Munich waxay qaadatay Manchester City ayay marka qaadatay naadiga Bayern Munich 4 sano heshiisa ayayna la gaartay tan iyo 2025 ayuuna u ciyaari doonaa 16 milyan ayayna marka ku qaadatay ayaa leeyahay wararka update-ka haatan ayayna marka ka mid yihiin dhanka kale waxyaabo kale ayaa marka jira annagoo marka aan fiirin doona dhanka kale naadiga Chelsea waxay fasaxday xidig lagu magacaabo Hasan Odayo ayaa la sheegay naadiga Borussia Dortmund ayaana marka uu ku biiray ayaa leeyahay dhanka kale Joel Kounda naadiga lagu magacaabo Chelsea ayaa marka qaadatay ayaa marka leeyahay naadiga Chelsea waxa leeyahay lacag 75 milyan ayay marka xidigana ku qaadatay ayaana leeyahay waana xidigaha ugu wanaagsan qaaradda Yurub xilli ciyaareedkan xoog ayaana marka waxa leeyahay xoog ayaa ku soo badanaya horyaalka waddanka Ingiriiska Milton Antonio xidiga lagu magacaabo iyo Adam Traore xidigay ka mid yihiin ayaa marka jooga ayaa marka leeyahay Cristiano Ronaldo waxa leeyahay naadiga United wuxuu marka ku imaan doonaa ayaa leeyahay 15 milyan 8 milyan lacag u dhaxaysa naadiga Juventus haatan wararka marka sida ay soo warinayaan marka ay xaqiijisay inay ku iibisay waxaa leeyahay xidigana waxa la arkay maanta isagoo marka tababar sameynaya xulka kulamada horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sitmaanada marka ma la ciyaarayo qaramada ay waajibaadka qaramada ayaa marka la gudanaya ayaa marka leeyahay Moussaki naadiga Juventus ayuu marka si toos ah ugu biiray naadiga Everton ayaana marka la heedayaa leeyahay 35 milyan ayuu ugu dhaqaaqay naadiga lagu magacaabo Juventus ayaa marka leeyahay dhanka kale haddii aan fiirido Joao Neves waxa wada xajood kula jirta naadiga lagu magacaabo Chelsea wada xajoodkii ugu dambeeyay ayaa marka leeyahay halka ninka Athletic Madrid u ciyaara Luis Suarez leeyahay xidigaha ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan ee La Liga marka ka ciyaaraya ayuu marka ka mid yahay ayaa marka leeyahay Real Madrid kana Pepe 180 milyan ayay haatan marka u joogtay ilaa haatan ayaa marka leeyahay Fiorentina ayaa marka rabta waxa leeyahay Ayuto Perez ayaa marka rabta inay xaaladiisa marka bedesho naadiga Roma ayana marka ka doonaysa ayaa leeyahay xidigani waa xidigaha ugu muhiimsan oo wacdaraha marka ka dhigaya ayaa marka leeyahay suurtagal maahan
dhanka kale Antonio Conte Sky Sports sidoo soo warinaya waxa laga yaabaa marka in lagu bedelo Mikel Arteta oo ku balgaroobay naadiga lagu magacaabo Arsenal ayaa markaa leeyahay dhanka kale haddii aan fiirino waxyaabo kale ayaa wargeysyada markaa haatan ay qorayaan Eduardo Camavinga waxaa leeyahay naadiga Real Madrid ayuu markaa ku biiray 31 milyan naadiga Rennes ayuuna ka soo dhaqaaqay caafimaadka ayuuna mari doonaa ayaa shalayta ayuu marayay markaa leeyahay wararka officialka waa warcad markaa ayaa leeyahay warbixintaani maanta markaa ay soo baxday naadiga Sevilla waxay xaqiijinaysaa iyana inay 55 milyan lacag u dhaxaysiya 70 milyan naadiga Chelsea heshiis ay ku wada gaareen xidiga lagu magacaabo Jules Kounde markaa inay naadiga markaa siiyaan ayaa markaa leeyahay dhanka kale haddii aan fiirino waxyaabo kale ayaa markaa wargeysyada ay qorayaan RB Leipzig Mureba waa ay qaadatay ayaa leeyahay naadiga markaa Barcelona ayaa markaa fasaxay ayaa markaa leeyahay Felimango waxaa leeyahay xidigii hore naadiga lagu magacaabo PSG naadiga Arsenal David Luiz ayaa markaa 2 sano heshiis la gaartay waxaana leeyahay naadiga Benfica ayaana markaa ku jirta sidoo kale ayaa leh contract 2022 ayaa markaa leeyahay wararka qaar labada naadi warow leeyahay naadiga Felimango ayaa markaa qaadatay ay leeyihiin dhanka kale Benfica ayaa markaa haatan ay leeyihiin waxyaabahaasi ayaa markaa la sheegaya laakiin waxa la xaqiijiyay naadiga Benfica inta badan markaa uu badan doono dhanka kale haddii aan fiirino naadiga lagu magacaabo Atalanta ayaa markaa waxa naadiga Barca iyo naadiga Villarreal ayaa wada xaajood u dhaxeeya kaasoo ku aadan xidig lagu magacaabo Neto ayaa markaa leeyahay sida wargeyska Catalan markaa uu qorayo 8 milyan ayaana markaa leeyahay Chenia mase xidig lagu magacaabo Messi ayaa naadiga AC Milan wada xaajood kula jirta waxaan leeyahay 2.6 milyan ayaa markaa ku doonaysa amba lacag u dhaxaysa 5.4 milyan amba 1 milyan ayaa markaa leeyahay dhanka kale Wolverhampton Wanderers ayaa markaa waxaa leeyahay waxay rabtaa xidiga markaa heshiis ay la gaartay leeyahay Renato Sanchez oo naadiyaasha kubadda cagta Liverpool ha ugu horeysay markaa ay rabtay Liverpool waxay ku aalatay Kylian Mbappe xidigani markasta wargeysyada markaa la galo waxaad ku arkaysaa Renato Sanchez iyo Kylian Mbappe markaa iyadoo doonayso xidig lagu magacaabo Emerson Royalna waxaa leeyahay midika oo caafimaadka ayuu markaa naadiga Tottenham haatan u maraya Hector Bellerin naadiga Real Betis ayuu markaa u dhaqaaqay ayaa markaa la leeyahay waxyaabaha update-ka ayayna ka mid yihiin dhanka kale haddii markaa aan fiirino waxyaabo kale ayaa markaa haatan wargeysyada ay qorayaan annagoo markaa eegi doona Moussakin naadiga Juventus waa markaa la wareegtay ayaa leeyahay naadiga Everton in naadiga markaa lagu magacaabo Juventusna wada xaajoodkooda waa soo gabagaboobay 17 milyan ayaana markaa la isku afgartay Daniel Jamesna 30 milyan ayay markaa ku qaadatay naadiga Wolves dhanka kale Jules Kounde waxaa leeyahay maanta caafimaadka ayuu naadiga Chelsea markaa u mari doonaa Callum Hudson-Odoi waxaa leeyahay naadiga RB Leipzig ayaa markaa la wareegtay Leicester City waxay rabtaa inay markaa naadiga RB Leipzig markaa wingerka ninka ugu ciyaaray lagu magacaabo Ademola Lookman ayay markaa soo qaadatay ayaa iyana markaa la leeyahay haatan ayayna markaa Joseph Brekalo ayaa leeyahay naadiga Torino iyo markaa xilli ciyaareed oo markaa ka soo tagay ayaa markaa la leeyahay oo markaa xilli ciyaareedka soo aadan markaa u sii ciyaari doona 13 milyan heshiis ayayna la gaartay ayaa markaa leeyahay Edson Eduardo wuxuu ka tagay naadiga Celtic wuxuuna markaa ku biiray naadiga Crystal Palace ayaa markaa la leeyahay haatan wararka update-ka Alex Moreno waxaa leeyahay caafimaadka RB Leipzig ayuu markaa haatan u maraya ayaa markaa la leeyahay dhanka kale waxyaabo kale update ayaa markaa jira ayaa markaa la leeyahay nin markaa lagu magacaabo 18 jir oo lagu magacaabo Membo Adobikobo ayaa markaa la sheegay in naadiga markaa lagu magacaabo Hunterville markaa town oo markaa xilli ciyaareedkan ku biiray ayaa markaa le haatan wararka update-ka ayayna markaa ka mid yihiin dhanka kale haddii aan fiirino naadiga Juventus ayaa leeyahay Cristiano Ronaldo waxay ku bedelan doontaa xidig lagu magacaabo Moussakin Camavinga waxaa qaadatay naadiga Real Madrid maba arki doonto Kounde naadiga Chelsea Zawi Nugulis waxaa leeyahay wada xaajoodkii ugu dambeeyay ayaa markaa ay kula jirtaan naadiga lagu magacaabo Tottenham Hotspur ayaa markaa leeyahay James waa baxyay oo naadiga lagu magacaabo Wolves ayaa markaa qaadatay naadiga Leeds United ayuu markaa ku biiray xidigii Real United warar kale waa update ayaa markaa jira aan eegi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee xidigaha markaa qaaradda Yurub xilli ciyaareedka markaa laga soo calaamadeeyay xidigihii ugu muhiimsanaa ee la kala qaatay ayaa markaa soo qaadan doona waxaan fiiri doonaa xidigii markaa la qaaday Mesut Ozil waxaa leeyahay naadiga Arsenal aad bay ugu shalaysay inay markaa xidigan fasaxdo ayaa markaa leeyahay
Mikel Arteta, Antonio Conte tababari hore naadiga Chelsea ayaa markaa lagu bedeli doona ayaa markaa leeyahay Kylian Mbappe, Renato Sanchez weligoodba waa hayaan ayaa leeyahay warkiisa naadiga Liverpool meel kasta wargeysada ka gashaan markaa waa ay qorayaan Cristiano Ronaldo tababarka ayuu markaa aad u sameeynaya dhanka kale Manchester City ninka akademiyada ugu ciyaarayay lagu magacaabo Harvey Elkabasi ayaa markaa la sheegay inuu ka tagay naadiga wuxuuna ku biiray naadiga Wolves way xoojinaysaa Nuno Espirito Santos oo ka tagay ayaba ka xanaaqsan yahay naadiga Arsenal waxay heshay ayaa leeyahay nin markaa Patrick Vieira cusub ayay markaa 12 milyan ayaa u soo baxay ayaa markaa la leeyahay waa la arki doonaa in Aubameyang kuma qanacsana inuu sii joogo leeyahay Hussein Our ay markaa doonaysa Benzema xilli ciyaareedka dambe ayuu u dhacay naadiga Arsenal inay soo qaadato ayaa wararka markaa ay qorayaan Hector Bellerin waa ka tagay ayaa markaa leeyahay William Ferguson waa dhaqaajiyay Ethan Matian waxaa leeyahay waa sii joogi doonaa naadiga Arsenal haatan wararka update-ka ayay markaa qorayaan wararka update-ka ayay ka mid yihiin waxyaabahaas oo idil dhanka kale haddii markaa aan fiirino waxyaabo kale ayaa markaa la qorayaa waxaa xidigaha haatan la qaatay Camavinga Real Madrid كون نادي جلسيا رينالدو سانشيز وولفيز جيميز نادي ليدز يونايتد xidiga Hector Bellerin naadiga Real Betis Emerson naadiga Asbres Cristiano Ronaldo waa bilowga naadiga United ayaa markaa qaadatay William Ferguson waxa la arkay iyadoo la soo bandhigayo dhanka kale waxa leeyahay naadiga Bayern Munich Marcelo Sabitzer ayaa markaa Everton heshiis la gaaray tan iyo 2025 milyan naadiga Bayern Munich ayuuna markaa kaga soo dhaqaaqay ayaa markaa leeyahay dhanka kale haddii aan fiirino waxa leeyahay maanta oo kale 2015 naadiga Manchester City waxay soo qaadatay ninka lagu magacaabo Kevin De Bruyne wuxuuna ka yimid naadiga Wolverhampton waxaan leeyahay record 15 milyan ayuu markaa ku soo qaadatay horyaalka konton ciyaaro markaa konton caawin ayuu markaa xilli ciyaareedkaasi markaa sameeyay 20 gool oo markaa caawiraad kale ayuu markaa xilligaas iskoorooyin fara badan ayuu dhigay xidigan oo laga soo calaamadeynayo isagoo horyaalka markaa kula guuleystay Luis Suarez-na waxaa leeyahay xidigaha ugu wanaagsan xilli ciyaareedkan La Liga ayuu ka mid yahay Ilkay Gundogan dabaaldegiisa xidigii ka mid Dani Ali Heung-min Son iyo ninka Greenwood ayaa dabaaldegii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedka markaa qaatay naadiga lagu magacaabo West Ham United waxaa leeyahay xidig ugu wanaagsan waa Mikel Arteta ayaa leeyahay xidigaha hoogan ayuuna soo galaya ninka Robin Neves ahna naadiga United ayaa heshiis markaa la gaartay ayaa haatan leeyahay Hinchan waxaa soo qaadatay naadiga lagu magacaabo Wolverhampton Wanderers ayaa markaa leeyahay haddii aan fiirino xidigaha qaaradda Yurub ugu caansan ee xilli ciyaareedkan markaa la qaatay waxaa kacaya xidig lagu magacaabo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Jack Grealish Sergio Ramos Romelu Lukaku Memphis Depay xidig lagu magacaabo Jose Sancho xidig lagu magacaabo waxaa ku jira markaa David Alaba Ashraf Hakimi Rafael Varane ayaa ku jira Joao Neves ayaa markaa ku jira xidigaha Zuma xidigii Oliver Giroud ku jira xidiga reer Talyaani ee markaa lagu magacaabo Locatelli Sergio Aguero ayaa markaa ku jira Donnarumma ayaa markaa ku jira waxaa ku jira Edin Dzeko Wijnaldum ayaa markaa ku jira xidigaha ugu muhiimsan ee markaa waxaa leeyahay xilli ciyaareedkan la kala qaatay 2021 waa xidigaha ugu caansan dhanka kale haddii aan fiirino naadiga lagu magacaabo Chelsea ayaa la sheegay Tino xidig lagu magacaabo Angelini ayaa markaa naadiga Lokomotiv Moscow ayaa markaa 34 milyan ayna markaa ku qaadatay lacag u dhaxaysa 17 milyan ayaa markaa haatan wararka la isla dhaxmaraya iyadoo la leeyahay xidigani qaybaha dhexe difaac ayuu markaa ka ciyaaraya markaa leeyahay haatan warkii update-ka ayna kamid yihiin David James waa ku deeyay naadiga lagu magacaabo United waxaa laga yaabaa markaa inay u shalayso ayaa markaa la leeyahay waxyaabo kale oo update ah ayaa wargeysyada iyo sidoo kale markaa ay qorayaan waxaa markaa fiiri doonaa waxyaabo kale oo markaa laga soo qorayo ayaa markaa eegi doonaa horyaalada iyadoo la isku haysto waxaa leeyahay Cristiano Ronaldo iyo Romelu Lukaku aad bay iskugu wanaagsan yihiin xulka markay isla ciyaarayeen xatee waa ismarxabayaan ayaa leeyahay xidigahani iyadoo horyaalka iskala ciyaari doona ayaa markaa la leeyahay xidiga lagu magacaabo contract cusub ayuu markaa saxiixay ayaa markaa leeyahay xidigan naadiga markaa u ciyaara Robin waa xidiga lagu magacaabo ayaa leeyahay oo naadiga markaa u ciyaara Robin Dias ayaa markaa leeyahay naadiga Manchester City haatan wararka update-ka ayaana markaa ay sheegayaan Jesus markaa uu siiyo horyaalka waxaa markaa ka ciisan naadiga Tottenham Hotspur 9 dhibcood ayay markaa leedahay West Ham United 7 Manchester United 7 Chelsea 7 Liverpool 7 ayay leedahay Everton 7
Manchester City ayaa markaa waxay ku jirtaa ayaa 6 dhibcood ayay markaa leedahay. Brighton Hove Albion ayaa 6 markaa. Leicester City, Brentford, Aston Villa naadiyada ay ka mid yihiin 5-4-4-3-2 ayaa markaa la kala leeyahay. waana naadiyaasha markaa waxa leeyahay naadiga Tottenham Hotspur Nunes Barreto waa lagu dhibtoon doonaa ayaa leeyahay ciyaareedkan wixii lagala kulmana waa la arki doonaa. dhanka kale waa leeyahay xidigaha naadiga Chelsea soo maray waxaa markaa la isku soo qaatay xidiga lagu magacaabo Mason Mount iyo ninka lagu magacaabo Frank Lampard ayaa qaabiyaareedkooda iyo isku ikaashahooda markaa isleeyihiin ayaa leeyahay. halka dhanka kale Didier Drogba iyo la isku soo qaatay Romelu Lukaku waan isdhaxli karaan ayaa markaa leeyahay. dhanka kale naadiga United shaxdii sitmaankii oo shax ka duwan ayay markaa haatan soo saaraysaa iyadoo Daniel James markaa fasaxday Ronaldo afka hore loo tuuray. Rashford iyo Sancho ayaa labada bal markaa la kala saaray. Bruno Fernandes ayaa lagu kabay qadbada dhexe. Ronaldo iyo Rashford iyo Sancho kubadda u qaybin doona. McTominay iyo Pogba ayaa qadbada dhexe markaa la istaajiyay. Shaw iyo Van Bissankana Dubay iyo Trey ayaa markaa la kala saaray. Maguire, Van, David De Gea ayaa markaa la leeyahay. Daniel James meesha waa ka baxyay marka waxaa leeyahay Wallace haystaa ayaa markaa leeyahay. Ethan Cavani waxaa laga yaabaa ayaa leeyahay inuu markaa naadiga sii joogo ayaa markaa leeyahay. waana waxyaabaha update-ka ayayna ka mid yihiin ciyaaraha kubadda cagta markaa laga qorayo. ninkii markaa Iguado Minde ahaana waxaa leeyahay kicitaankii sitmaanka uu sameeyey waa kicitaankii ugu yaabka badnaa ayaa markaa leeyahay. shaxdii markaa Alan Shearer iyo xidigay ka mid yihiin falanqeynta markaa horyaalka Ingiriiska ay ku sameeyeen waxaa markaa haatan la soo qaatay ninka lagu magacaabo David De Gea goosha la geliyay. difaaca Rafael Varane, Christensen oo naadiga Rudiger Chelsea labada difaac ka socdaan. ninka lagu magacaabo Klinger iyo ninka lagu magacaabo Højbjerg oo markaa u ciyaara naadiga lagu magacaabo naadiga Tottenham Hotspur iyo Allen ayaa markaa la soo qaatay. Ilkay Gundogan ayaa markaa la soo qaatay. Ferran Torres iyo Gray iyo xidiga lagu magacaabo Justice ayaa shaxdaas ayuu Alan Shearer markaa sheegay isbuucana markaa inay tahay. dhanka kale ninkii markaa waxa ahay West Ham United ayaa markaa qaadatay ayaa markaa la leeyahay. ninka lagu magacaabo Nicolo Vlasic ayaa markaa qaadatay ayaa markaa la leeyahay. dhanka kale John Terry Saska ninka lagu magacaabo Aspilicueta ayaa markaa la isku soo qaadanayay. Lionel Messi xilciyaareedka waxaa leeyahay aad baa loogu dhibtooday. Haaland wuxuu leeyahay Virgil van Dijk waa xidiga qadbada dhexe difaaca ugu wanaagsan qaaradda Yurub. Haaland waa u qiray Paul Pogba United ayuu sii joogi doonaa. Ronaldo tababarkiisa kadib ayaa la arki doonaa iyadoo Kante Benzema xidigay ka mid yihiin markaa xulka wadanka France tababarka ay isku diyaarinayeen oo la arkayay. Maguire iyo ninka lagu magacaabo aad bay iskugu soo baxeen. Ronaldo tababar xoogan ayuu markaa sameynayay. ninkii Abraham haana naadiga Chelsea aad buu ugu raystay. waxyaabahaas ayaana wargeysyada iyo kubadda cagta gabi ahaanba update ka ahaa. intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. dadweynaha aan ka codsanaynaa inay markaa laagta iyo sheerta ku qabtaan page-ka iyo YouTube-ka oo ah Abdinuur Bashiir Maxamuud Dejiye oo ah YouTube-ka iyo page-ka oo ah Bashiir Page oo isla Abdinuur Bashiir Maxamuud Dejiye. guud ahaan barnaamijka ciyaaraha Update Sports halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. intaa ku kulmi doono mid lamidna waxaan idin leenahay nabadgelyo.